سمروه وعمامدي وان قرنتي وقونتي دلك aniga oo ninka xajis oreankiisu saldaladii qaranka ka soo jeeda ayaa diraya war hadii qaraf iyo kibriid lagu qabtay sool maantana ma waxaan ku qabanaa awdo warintay soo hari muso waxaan leeyahay war dalka maxaafadii go'jadeen ku soo ururay baaraba ku xulnooyba meel habar waliba soo kaan tagtay iyo talle askariyan oo bilaadana jaawa aniga iyo xildhibaan garas iyo shacab fara badan oo xitaa xasaxaafada qaar ka jooga waxa lagu yiri عادوغي gudaha tiriyay qarandumis inaan ka yiri hataa anigu askari waan soo maray xabdismeedkiisa nin yar oo iska naaxay oo tuuba iska jaqayay oo barida naaxaday adooso awrtii beeraha daaga jiray oo dhaqankii ciidana lahayd xabdismeedkii ciidana lahayd iska kibray ayuu maalintii ragaa dhaxay maadin baruur anagu kulmiyaan lahayd kudkaasoo kordhaan lahayd kulma soo qarsoonoo kaahiniye musa كنتي فقستي كارها دعاية مسوا على سكات كنا الذي بقى كانوا كان شبابي كل كحرام محمد عبيد ودي في الشكوك والسومالنا daawadayaal waqti xaadirkan waxaa khadka taleefanka si toos ah ugu jira xildhibaan Khadar Guun oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waqti xaadirkan ku sugan dalka dibadiisa mudane xildhibaan waa ku soo dhaweynayaa marka hore waad la socotaa buuq iyo arrimo badan oo dalka ka taagan iyo dacwadda ay xeer ilaalintu ku soo eedeysay xildhibaan Maxamed Abiib oo kamid ah mudanayaashiina golaha wakiilada Soomaaliland ayaa buuq badan ka dhex abuurtay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland degta bal adigu sidee bay kula muuqataa arintaas markii horta wariye Yaasir aad baan ku salaamayaa shacbiga Soomaaliland ee ugu qaaliga ah ee gubta ah ee sabirka badan ee waxaa soo maamul xumo iyo fool xumo ah ku habsatay ilaa intii xilka uu qabtay musabixi hoggaanka dalka dul qaadanaya ee waxa dib dhacday dul qaadanaya ee inta doorashada la beerastay dul qaadanaya ee sicirbarka dul qaadanaya ee xadhiga xadhka goostay dul qaadanaya ee cadaalad darrada dul qaadanaya hantida qaranka ee la xaraashay dul qaadanaya ee gooja cadde iyo wixii ka dhacay dul qaadanaya aad iyo aad salaamay dhammaan shacbiga Soomaaliland horta waxa weeye qofku markuu xildhibaan yahay wuxuu leeyahay xasaanadana sida ku qoran dastuurka xildhibaanka haddii waa bini'aadmi xildhibaanka dembi wuu ka dhici karaa dembi madaniya waa ka dhici karaa dembi maaragtay xeerka ciqaabta lala tiigsanayaa ka dhici karaa laakiin kow waa in marka hore waxaa xildhibaanka lagu soo eedeynayo u noqdo wax leh xaqiiqo ku qotoma oo xildhibaan dhan loogu soo bareerayo waa inuu noqdaa oo uu qodobo dastuuri iyo qaar xeerarkeeda ciqaabta waafaqsan noqdaa dacwaddu markaa ciddii dhibanaha ka ah waa inay markaa ay midisaa maxaan ku idhahdaa xeer ilaalintu haddii usoo gudbisa baarlamaanka oo ay tidhaaho waxaanu doonaynaa in xilkaxayuurinoo ku sameeyo si uu xildhibaanku u noqdo triable figure qof la dacweyn karo oo xasaanadii loo xayuubiyo marinkaa waa la maraa laakiin waa goorma waa marka kiis wanaagsan oo weyn oo culus oo haddii xitaa traitor lagu eedeyn la leeyahay waa qaradumis waa in loo helaa dacwadii buuxdaa haddawaad maqlaysaa soo maaha weeye siro si fiican waa in markaa deetana loo keenaa shirgudoonkuna waa in golaha hor keenaa sidaad la socotaan xasaanada xildhibaanka waxaa lagaga qaadi karaa marka mudanayaasha golaha fadhiya 280 ay ku raacaan codshada maxkamadda ee shirgudoonku soo gudbiyey 3 meelood marka loo qaybiyo 2 oo markaa noqonayso 50 xildhibaan inay yidhaahdaan ha laga qaado xasaanada iyada oo laga doodayo golaha la hor keenayo sababta la isla eegayo xildhibaanadu isla qaadanaya unbay dhici kartaa iminka sidaan anigu maqlayo inkastoo aanu hor oon qoraalkii oo xeer ilaalintu soo gudbisay ama ay kusoo qodobaysay dacwadda waxaan u arkayaa wax la midirootaynayo waxaan u arkayaa sida aan la qabo xildhibaanadayda faraha badnaa ee soo dhaweynayay xildhibaan Mustafa Khayreeye isla qaateen
waa nin ay dowladdu beegsatay xildhibaan maxamed abiib. xildhibaan maxamed abiib waa xildhibaan runtii ragga dhalinyarada golaha nugula jira aqoon leh codkara runta ka badheera qarankiisa ugu shaqeeya sidii ugu dhaartay waxa weeye waa nimaan min qura aanay kala go-lahayn dhaliyaha u soo jeedinaya dowladdana wuxuu ku noqday dhimbiil daba oo maxaa ku yidhaahdaa laabta ka saaran ayuu ku noqday xukunka muuse. waa nin la beegsaday baan u arkaa, waa nin wax maaragtay loo soo dhodhoobtaan u arkaa. waxaanu leenahay dowladda maalinba ma waxay beegsan doontaa ka runta idiin sheega, maalin walba marka xaqa ku adibeedu beegsan. maxamed abiib maaha aqal quraarada oo dhagax lagu soo tuuro ku jabaya. 82 xubnood baanu ag dhex fadhiya. arrintaasi annagoo baarlamaankaanay noo taalla. laakiinse waxaa leeyahay dowladda waxa la waayey bari, warshaday baa beri la waayey oo la lahaa waxba ma samayn karaan. warshaday baa shacbiga somaliland bar ka mida lagu sheegay maxaan ku yidhahdaaye waxa la yidhaahdo cadowga gudaha. oo tusaalaan kuu siinaya 20 bishii horeyna dhaaftay maalintu imanayay siyaasi weyneyna cumar bool askariyan oo bilaan darajo ah aniga iyo xildhibaan garas iyo shacbi fara badan oo xitaa saxaafadda qaar ka joogaa buuxa lagu yidhi cadowgii gudaha tiriir qarandumis. inankii waa la ii sheegay 3 goor buu ku yidhi waa xishood xildhibaanaan leh. wallaahi inaan naga xisho yacni waxa weeye gadare garab inankaa yari. xataa anigu askari waan soo maray xabdismeedkiisa, nin yar oo iska naaxay oo tuumbe iska jaqayey oo barida naaxaday admoodayso awrtii beeraha daaqa jiray oo dhaqankii ciidanaan lahayn xabdismeedkii ciidanaan lahayn iska kibray ayuu ahaa. laakiin maadaamuu darajo hoose ahaa war miyaynu ashtakeynaa mise waynu iska daynaan kuli qaranka wax badan baa qalloocday. haddee marka waxaan kuu sheegaya kuwan ku hadaaqaya maxamed baa la xidhayaa kaasay la garaadihiin. dalkiina waynu arkaynaa xaaladiisa. waxaanu rajaynaynaa isbeddel cusub insha allah hadday doorasho dhacdo. xusbiga rajadeen rajaynaya inuu dalka dibadda uga qabto, inuu waba xaqiisa siiyo. qofkii dambiilaana kolley xaqiisa in si daacada oo maxkamad furana loo hormariyo. ummaddan maalinba qof wax loo soo duuboobayana faraha alla in laga qaado ummadda oo xorriyaddooda iyo calankooda tawxiid kale ay ku naaloodaan oonay cabsan baanu insha allah la beegsanayna haddii ay noqoto maanta doorashada inay helaan maamusa ku hay. way xildhibaan maxamed abiib wuxuu ka dhigan yahay waqtiyada qaar xildhibaan baa jiri jiray waddanka kii waqtigii dhaanigaara buu joogi jiray oo loola jeeyay david shikuku. nin buu ahaa fari kritiga dowladda had iyo gooraale qaradaadkeeda tilmaama. waxaanu ka yimid galbeedka kenya saan jecelahay oo codkana oo hadda jira oo runta sheegi jira. maxamed abiib waa david shikuku of somaliland. he's a man of mandate. he's a guy who telling you whatever happens in somaliland in corruption way. marka ma waxaa lagu haystaa maxamedow maxaad u sheegaysaa runta mise xeer baa lagu hayayo. haddii xeer lagu hayo haata burhaanakum baanu leenahay golaha keena. way xildhibaan adigu ma waxaad leedahay haddii maxamed abiib xasaanada laga qaado waddadii ay sool martay ayay booramana maraysaa? waxa weeye daandaasigu meel buu ka bilaabaa. dagaalkii labada adduunyada markuu dhacay waxaa jiri jiray waxyaabo soo jiitamay waxyaabo mar qura dhacay. waxyaabihii dhacay ee keenay dagaalka sababihii dejiyey waxaa dilkii ninka loo jiray arkitug estelianka ee la dilay sigii xaaskiisa lagu dilay sarajevo. waxyaabaha qaar baa jiray iyadoo dee political time oo yolku iska jiro oo ay kacsan tahay haddaad qujoyso aad sii taabato. xildhibaan abiib maanta in lagu soo degdegan maaha. haddii la leeyahay soomaaliga cid buu arkay iyo waxaan la sheegayay iyo wararkan iska kutirkuteenka ah in la leeyahay wuxuu arkay ninkii salaad sheelle. waa dowladdeennana 10 goor aragtay oo iminka maalintii ugu dambeysay cabdixamed kaahin anigoo jecel odaygaa warkiisa inaan ku noolnoodo isagoo wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynuhu miyaanay ahayn kuwii heshiiskii emooga intaan la tegin la saxeexayay ee muuse iyo ay du taagnay xasan sheekh isna uu la saxeexayay. war haddii uu government official yahay oo ula kulmayna
horta way dhacdaa kuwanaaba ugu dambeeyey dadkana ku shaabaneeya maxamed abiib haddii la leeyahay soomaaliya wax la qabto la shaqeey ee keena ku caddeeya keena factka haysaa laakiin maalin buu qofka weli ka arkay waad aragtay dumar xitaa waan jaweyna baarlamaanka waanu kasoo dareerinaynayo waa la xirayaa baarlamaanka wuxuu noqdayba meel habar waliba soo kaadin tagtay xasaaladii dalka ugu horreysay anaga ahay caawa ninka xildhibaanka ah xilka waxaa lagaga qaadaya 5 muuse bixina waxaa lagaga qaadaya 2 muuse waxaasoo nashaqaa dhigay ayaanu indhaha ka qasanaa aanaan soo dhigin badka in la idhaxayaa waxyaabo badan oo aanu ku soo oogi karnana aanu heli karayn baanana tegin anagoo eegaynaa danta guud isku waditaanka iyo warumada somaliland maanta waqti adag bay ku jirtaa wadana la ictiraafay cadowgeedu badan yahay ilaaliya ayaanu ku wadnaa laakiin de hadday bahasha halkaa gaadho dee anagana muusuunbaa dee kawaanka noo saaraano dee dowladdana rag badan aanu anaguna xasaanada aanu beegsan doonaa haddii aan la idhaahdo laakiin qaranku sidaasi kuma samee war waxaan leeyahay dowlad yahay xaggii dhaqaalaha ku fashilan dowlad yahay amnigii ku fashilan dowlad yahay xuduudaha sugitaankeedii ku fashilan dowlad yahay xaraasha sahansidii qaranka dowlad yahay cadaalad darrada ku baahday dowlad yahay marna xamar u dusto marna wax la socdo marna murata dowlad yahay nafta laga dhigtay mar dil laga dhigtay mar carab laga dhigtay ee haybtii xitaa kuba laga raraysa waa dibishada dib looga joogsadaan leen way ugu dambeyntii xildhibaano maanta hadlay ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in baarlamaanka oo dhan la kala dareeriyo xildhibaanada hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan jaamac Bokor Dube oo doorashada la raaciyo oo xildhibaano cusub la soo doorto bal adiga sidee kula muuqataa ilaan xildhibaanadiina maalmihii u dambeysay saluugyo kala duwan baa laga muujinayay horta niyo Bokor Jaamac Dube anigu inaan hadduu sidoo hadlay waxaan leeyahay may ku badnay ya waxaana leeyahay waa awr dabarlacan dhacay shakhsiyadiisa iyo aqoontiisa iyo kalmanadiisa iyo wuxuu gudaha ka yimi geli maayo maanta laakiin hadduu isagu dee naga bayray dee waxa weeye waa quruufkii gooniyu daaqay laakiin inta badan iyo baaqiga haniye dee aqlabiyaddii way joogtaa dowladduna dee ugu xildhibaanay nagu leedahay qaar ay u gacan haadisay nagu leedahay qaar ay dhigta wax u saartay leedahay qaar dee xabagta ay u gurtay leedahay ee markaa waxba oran maaye jaamacnaha iska hadlo dee baarlamaanka aqlabiyadiisina way joogtaa marka kala dareerintuna mid jaamacu taalla maaha mid muusena maanta u taalla maaha oo waqtigii mandatekii waa haystay baarlamaanka inuu kala daro u dhaafay oo isagii baa mudda kororsi ku socda marka waddanku xeerar buu leeyahay jaamacna waxaa loo oran lahaa brother go back to the books and read whatever you have a right to say way ugu dambeyntii mudane xildhibaan reer awdal waad maqlaysaa oo iyagu laftoodu fariimahan jabaad ay soo dirayaan cali xaamud jibriil oo hadlayna waxa uu yiri faratoon oo gudoomiyada golaha wakiilada ayuu ku eedeeyay inaanu dadkiisii gacanta ku hayn isaguna dadkiisii uu gacanta ku hayo bal adu arrimaha maxaad ku soo gabagabeyn lahayd horta waxaad ogaataa yaasir oo balaadu duniyada baadiyay dalkan dee hal qabiil baynu ku fadhiisanay burco lagu heshiiyey oo dee sabaroon waxay qoladii qaybta doorka way ka qaadatay markii inta isaan suu dhici gaadhay ilaa ergadayna dhisma shirkii burcaanay nala abaabusho wey sabaroon waa cumaamadii waa dheergaradkii waa aqoontii dalka aniga oo ninka garxajisa oo reerkiisu saldaladii qaranka ka soo jeeda ayaa dhiraya war haddii qaraf iyo kabriid lagu qabtay sool maantana ma waxaynu ku qabanaa awdo war intay soo hadhi war hadday intaasina gubato war ba afartayda reer hargeysaas ku soo hadhaya afartan reer war qaran xaggee laga doonayo war waxa la yidhi kada socno kule halku muuse madaxweynuhu noqonayna kaanama ugu noqon doono wasiirka arrimaha gudaha se madaxtooyada hadday oodan meesha ka baxdo maanta saylic iyo muuse miyay wada fadhiy yaasirow dalka ma waxaynu kusoo ururinaa muuse waxaan leeyahay war dalka maxaafadii goljanaynu kusoo ururle iyo bille iyo talle maalintii raggaa qaaxay maadeen baan u warwaray qaaxa waxaa jiri jiray malaa yaasiro maa qabanne markii dagaalku socday ragga jooga qaar ninba nooc baa loo qeybay qaar gaasdagoolaa la yidhi qaar sd bay ahaayeen tababaray dee baabuli meelba ka soo baxday
waxaa jiri jirta aan loola jeed gaas cigaal waa cigaal shabaab waa kuwa fulinay markay xabaddu qaraxda dhuumata iyo qaar loola jeeda gaas wardoon oo iyagoo mutacaafiin midowga dowladda ka fadhiya dagaalkii qorigala degta asaadayda dalkii maxaa ka dhacay markaa riwaayadii beenged la sameeyey waad ka dhegaysatay war maanta dalkii raggii ahaa gaas cigaalka ayaa maanta madax ka noqday waa u baqayaa xamarna waxba ma yeelayaan oo xamar inta gurba qujeerba xamarna noo soo kala tirisaa marna hawadiskaga kaaya duubtaa marka anigu berigaasaan maasayir ka jirin anagu kulmiyaano kudkaasoo kudhaano kuma soo qarsoono kaahiniya muusare kicintii faqashtay kaaraha dhacaya madfac laysu kaakaday korneeladii baqaayay kaamidka hanjabayo kuwii qaxabaan annagu kulmiyaanadaas baa ka wey waa labadii nin ee magacaan ka bilaabo ahaa annagu kulmiyaan lahay kudkaasoo kordhaan lahay kulma soo qarsoono kaahiniya muusare kicintii faqashtay kaaraha dhacaya madfac laysu kaakaday korneeladii baqaayay kaamidka hanjabayo kuwii qaxabaan war oodanaa laga daa bujubujaynta soolna weji wanaagsanaan galno oo nimanka walaalaheena ee dhaawacaya maxaabiista leh aan kala soo baxno oo af wanaagsan aan kaga soo saarno waxaa la gacantaada haday suula gasho laguma gasto waa laga dhiraandhiriyaa waa dadaan hoggaankiisa aana helin dadkii haygi lahaa ilaahay somaliland haynoo badbaadiyo intaasumaan kusoo gabagabeynaya waana kelmadadka jawaadi ka dheheen maxamed abiibna waxba yeeli kari maayo dalkii wax yeelaya waay aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaalkaasina wuxuu ahaa xildhibaan khadar guun aad iyo aad baan xildhibaan kaaga mahadcelin waqtigaa qaaligan